KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay bro hey walkoy ay kuriti ara kuriti mina shinidi dhikwa shin adlamaysa ayage war joogti waxa lagu bedelay siifda baba may kaale kuwaan sii safety sakiif dhahay maxay soo dhammeeyne wab kala dhawye war qaraxyadii baabuurta albaabada lagu furin jiray waa laga reestay laakiin xeelad kale cusub ayay la yimaadeen arooda dhagaxaan torta waa dadaaleen haddii baabuurtii celiyeen laakiin lugaa lagu soo galay aawahay ciidankii war ma haysiin kowdhaa ciidanka wax ma bi'in oo waa laysu soo ekaysiyo ciidana layskaga dhigay wareedhahaya nimankaani haddii dhagax la dhigo iyo haddii ciidamadu dadaalaanba waa jinni meelaan la filayn bayna ka soo baxayaan marka waxaa la yidhi qayaanooyin jaan iyo dadka bale la joogtoon loo jeedi karinoon marna jixinjixayn iyo cadow jaadad badan iyo mujtamaca jirraban baa wada jooga xamar nabee haddaan leeska dhicin cadowga inaan la noolaahaynin haddaan wax leeska celaynin cabaad wax kuu tari maayeeho bacbacdiya bilaabate bulshadii maala baabaa bacbacdiya bilaabate bulshada maala baabaa maya cabdullow ma waxaad tiri dharkii baxkasiyay wateen war baxkasii ma ahayn dharka booliiska ay wateen war adeer in badan baa cirka laydin diraye miyaydaan wax ka baran arooda anigu waxaan la yaabanahay dadka sakiya iyo xijaar ammaanka sugaayo iska fafadhiya war anina may baliyabana dadweynaha may leeray may qoladaanu iska dhacshaan madiyo hutaalkii ritiga galaayangna bustoolida weedan antile ka gaado qasnad likiire aryaadaha aniguna waxaan la yaabanahay dawladdu mar kasta waxay tiraahdaa shacabku ciidanka hala shaqeeyaano hala shaqeeyo wax walba ciidan ay isla soo ekaysiiyeen anigu waxaan la yaabanahay dharka ciidanka cidda ka beec mushtarayso aan la soo xirayn anigana waxaan la yaabanahay shabaabka booliiska ku jiro oo la soo qabanin anina waliba la yaabana tukaame suugata kiyaalan oo dharka ciidanka la ka tolaw aniguna waxaan dhihi lahay ciidano ekaha iska baar warnimayo anigu waxaan la yaabanahay sababta xamar nabadda loogu diidan yahay war doqonaa tahay maandhow waxaa la yidhi xamar lama kala laha meelaan la kala lahayne wax kastaa lagu sameeyaa waxaan la kala lahayn oon cid ilaashata lahayn cid u dhaxdana ma helaan mana sii jiraan aryaadhaha warkaan ha ku daaline anigu waxaan dhihi lahaay hey dalaan daadkiisu daafeecay doqon kaastaa kuu soo deege dalaan daadkiisu daafeecay doqon kaastaa kuu soo deege war nin walooba doqontiinna iyo dila shabaabkiinna maxaad ugu dari weyday ma shabaabkaada danana siisay adaaba amiir u ahay ar doqontii abdulli sheegay ayaa ka hasuusiday may leeray heesta hota ka hor helen doqoni debka makaade daamanka ay mermerisa arooy docday ka jirtaabay dhaxani ka dishaaye duqunay dabka ba madirsado walaalkeed intay dunida joogteen doqonay dabka be damarka lagu xirxiirayay soo hataa xarigga laba diblaynayaa loo dirtaa doqonnimay ku daa'intaaye ma dadba doqoni dabkaabe war odayaal marmaraysaa tihiin dhacdadii xalay waxay ka dhacday ka soo horjeedka madaxtooyada ahayd oo xaggay soo mareen ciidanka madaxtooyada irideeda ka dagaalamay war naga aamus dagaal gundaha uu ka dhashaa la yidhi maya geeridii galbeed laga sheego gundahaaga ka fiiriyaa la yidhi waxaa hore loo yidhi gacantii wax qaadqaad barato
gumudkeedaa lulusho ana maanka gabagabaahin lahaayey haliinti kale ii moodhatiyo kabati ilaahay noo weela anugu waxaan dhihi lahaa intii xalay israa'il ku dhimatay allaha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha u boogadhayo kuwii dhibkaas geystana allaha ka abaalmariyo dadka soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa in habeen kasta xayn laydinka goostee la daawado waa dhaqankii xoolahee dhaqankii dadka maahan dawladdana waxaan dhihi lahaa sidaan dal iyo dad laguma dhaqee dhaqan kale la imaada ama dadka hor dhaafa eebaagoo hala dhaawacyadi dhacay aakhira kuwa jiraa ka mid ahay geesinimo badana gamba maaha ka warrama aroo cabdulooyaa waayna kuwaas waa kuwe aryaa dhagaxtuur iyo cabdulaahi ciise xala inta xabada ku dhacda amaa tagaan qof ka roogsatana ma lehe war aaneer walmooshiidii cabdulaahi ciise ma dhaawacna wili buuggii akhrisadoo haay aryaadhaha cabdulaahi ciise iyo dhagaxtuur waxaas u malliicaana ka gudba war maxaad ragga keliya u buunbuuninaysaa miyaada xaawo aragoo fallaartii wadnaha uga taalla dubbaheediina sidii u haysata aryaa naga wad waagaba sayidku seeftiisii oo wataahe war adeer godonaba isagoo qorigiisii watuu dhintay maxaad noo sheegaysaan warnimayahu maalin dhoweyd wargays maraykanka ka soo baxa oo madax soomaali iyo maraykanba ah waraystay wuxuu yidhi dawladda soomaaliya dagaalkii shabaab waxaa kala weynaaday mucaarad afka ka hadla annagaaba taas ogayna ma maraykanaan ka dhegaysanaynaa ar waxaa kaloo la yidhi xamar waxaa isku haaya daacad qaba dhoohan iyo dhagar qaba dhiifoon dhaadhaan haddaan ahay adna dhoohan aad tahay dhaadhaan haddaan ahay adna dhoohan aad tahay war saa ma aheene waxay ahayd dhulka kala fogaadiyo labadeenna kala dheer iyaysu soo dhoweeya war waxaa la yidhi xoolaha haddii neef bahal ka cuno waa la raadiyaa waana la soo dilaha inta badan waxaan la yaabanahay dadkaan layska cunayo bahalka cunaya aan marna la raadinayn waxaan la ogayn baa la raadshaayey wax la og yahay yaa raadinaya nin hurdaa la kiciyaamaya waxaan maqli jiray midka kula hadlaaye haddana maqan maxaad odhan aryaakaasu dabbaal ahaa war xildhibaan maasalaad wuxuu yidhi xogtaan israa'il ka hayna intay dhimashada dawladda sheegtay way ka badan tahay war wuxuu yidhi maasalaad dawladda iyo shabaabka shaatiga iyo shaabadda ayuu kala duwan yihiin shaqada kale waa asaga mid arnaga tag wax kale ma ogide shaatigii dawladdaaba leesu soo qaata asal leesku xasuuqaye intay ku kala duwan yihiin war miyaan hore loo odhan xaa loo orahaa lama dhaho balaayaba balay shaabahdaa lana shurkowdaa sharciddii rukumataa fidnada waa shushubataa shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan horta labadaa shabaaboo mar kastaba la sheegaayo ma la kala saaro ambaroy lama kala saari karo horaa waxaa loo yidhi ninkii lama dal yeeshaa midkoor waa dayacayaa khadiijo maxamed yidhi waxay idhaahdeen dadkaan dhahay doorasho qof iyo codaa dhacaysa qaran way ku jiraan warkoodana waxba kama jira doorasho qof iyo codana dalkan kama dhici karto waxay tidhi doorashadii hore jawhar 5 jeer iskaga daba laabtay anaa baabuurkeega ku socda maantana qof tegi kara ma laha maxaa dadka beenta loogu sheegaa arooda khadiija libaax laba ma aha waa iska dhaafta miya war khadiija nabad iyo nolol ma ka baxday war wasiir khadiija waxay tidhi nabad iyo nolol xisbi ma aha war khadiija waxay tidhi in muddada la kororsado wax diidaya lama arko horena way u dhacday war dad waalnaatiina markii wakhtiga gabagaba noqdo waa la kala guuri karaa aryaadhaha abwaan cabdiduux yuusuf xasan hadda ka hor wuxuu yidhi dembi meeshi lagu galo dib baa looga guran jira anna doqon sidiisii halkii dacaya dheeraw damiirkaygu ima siin war saas mahayna waxay ahayd yaa qarankii shalay dumay derbiguu adkayn kara war mee waxay ahayd cuqubaba halkii lagu galay caw ku hurdaaye carruurahay ka laysaa ninkii caana baas dhama warwarka abdidhuux may baan dambeeyey abnitaam ee lama helin janaanaduna tira ma leh war wiilkii fogaaneegaha wuxuu yidhi dawlad kasta waxbaa laga baranayaa dawladdan tii ka horraysay qosol iyo qayaana laga bartay buu yidhi tanna kayrar iyo kursi jacaylaa laga bartay buu yidhi war caleemasaarkii brofesor shirwac ugaas ka qayb galay wuxuu yidhi waxaan salaamayaa ugaasyada ka socda kenya uganda tanzaniya iyo maleesiya yaa ugaasyada etoobiyana ma ilaawiyey war adeero ugaas buu ahaa qaranka ka socda somalilanna uu matalayey war maleeshiya ilaaha nooga raayay war waa kuwii xalay dadka laynaya maleeshiya oo bararacda ku haya war shacali wajiis wuxuu yidhi sheekh xasaan ninka la leeyaho kenya jooga dawladda kenya ha naga ceshato dawladda soomaaliyana waa inay arrintaa kala hadasho
hadashaa dowladda dhiggeeda aryaadhaha sheekh cali wajiis see wax ka yihiin xasaan waa shabaabe ma shabaabaa dawlad looga dacwooda bisinka dowladda kenya inuu shabaab yahay in loo sheega meesha waa ku jirta warniyo qolada waa waalantiiba war ma qoladii badda idinku haysatay ayaa maanta dib ugu dacwoonaysaan war ma haysiin madaxweyne waana wuxuu yidhi doorashada soomaaliya waa inay dib u dhicin arooya waara gareen ma geed kalow cuskada war owlaatir badanoo baari ahoo baad aragta dhatiyo koo aase ah ka beheley war lafta gareen yuanka canaantaa la yidhi meeqa wajaanoodaa lagu dhiftahe waryaa buda tirig niman ere karoon lafta gareen warya walaa isin sheegasan budahana dhihin basada ka gubeen arowaa kaa yidhi iskhilaafadii kalena gacan kula taga arro